السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسر هذا برنامج كواي أرك SNTV لندن. برنامج كواي أرك وح عندوني نعاوة إنا نكو أجنو كسوق هذا كجا هذا لنا أنت وحي تورتنا تاريخ دي حوج الدلك الصوماليات هيركي كلا دونا أو صومري وحنوها بيني كوني سجال بقولي لحدنكي إلا سجالي لحدنكي سجالي لحدنكي إلا سجاشنكي إلا هذا صد حدا حلي dad badan ayaa doonayo inay arinta wax ka ogaadaan email ii soo diray oo yiri waxaan jeclaan lahayn bal taariikhiyan astaanta iyo heerarka kala duwan ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee soo maray in yaani warbixin aynu ka helnaa. dad badan baa soo qoray emailka marka sida awgeed waxaan halkan yaani ku soo dhaweynayaa arintaas nooga hadli doono saddexda xilli marxaladood xoogga dalka Soomaaliyeed oo soo kala maray 60kii إلا سجال اللحدنكي إلا سجاشنكي إلا هذا وقت كان يعني جوجلو يعني خبير يعني شخصي رمتي لندن كنول بدنا يعني جالية يداو ضياشة تلفزيون كلا دوان كقيب قاطع يعني أقونتيسا كسب بندقة أفائدة يدتك مركا برنامج كانوا حكى فائدة سدون ضد بدون أقون أولين أستانتا يعني هي تاريخ دي هيركل دون حوق الدلك الصوماليد oo soo maray barnaamijyo badan baa ka soo baxay SNTV aynu ognahay mid joogto ah xooga dalka ciidamada yani marka waa taariikhiyan waa yani dad ka warqabin inaan yani gaarsiino in u fasirno yani astaanta iyo taariikhda saddexda heer oo soo maray xooga dalka Soomaaliyeed marti waxa inoogu caawa khabiir gashaan la sare Umar Suleymaan ku soo dhawaad barnaamijka SNTV ku dhawaad waa tahay waa Umar waa ka filiyay inta runtii barnaamijka marka si aynu yani waxaynu insha Allah ilaadiisa aynu ku furi doonaa ugu horeyntii astaanta xoogga dalka Soomaaliyeed markii la aasaasay calaamada lagu yaqaan oo kaga duwan yahay booliska iyo ciidamada kale oo dalka ka jira yani waxa ay fasirayso waxa gudbinayso waxaan jeclaan lahaa astaanta inaad noo soo saartaan farsamada عمر وادقنا نوغا شيكيساس ان انت يعني اصلانت مارت دوينها داودياشان aqoonta u lahayn waata alka ka muuqata بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد waasuga astaantan iyada ah hadii aynu eegno oo si fiican aynu eegno astaantu iyada isfasiraysa astaanta waxa weeyaan noocyada kala duwan ee ciidamada ayaa ka muuqda xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu ka koobnaa ciidanka dhulka oo xariiqda cagaaran koofida helmetka iyo labada qori isweydaarsan waa astaanta ciidamada lugta oo dusha sare ah oo dhexda ku taal cagaarka waata astaanta kale oo dhinaca midabka martay inaga midabkeena waxa weeyaan astaantii ciidanka badda baddu waa buluug calaamada waa laga soo qaatay buluugaas badda laga soo qaatay astaanta bixida martayna waa tii ciidanka cirka waxa ku sawiran dawladda baalaheedii garbaheedii baalashi waata iyo xidig waata iyaduna waa astaanta ciidanka cirka oo isaguna kalarkaasi waa ciidanka waa cirka midabkiisa waay calanka Soomaaliyeed buluug dambe calanka Soomaaliyeed waa ciidanka cirka matalaya kan maroosu ku sawiran yahay sax waa ciidanka badda waata kan kale waa midabka cirka oo waxa weeye waana buluug waana midabka cirku leeyahay waana calankeena Soomaalida qaranka calankiisuna waa midabkaas oo xidig leh ku leh marka kaasina waa ciidanka cirka xariiqdan greenka ah waa greenku wuxuu ka joogaa dhulka iyo ciidamada dhulka ka joogaa saasay u kala baxaan saddexda ciidan waa saddexda ciidan ee loo yaqaan xoogga dalka Soomaaliyeed waxa saddexda ciidan ahayni xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid aha waajibaadka oo hadaynu taabano waajibaadka xoogga dalka Soomaaliyeed laba waajib oo waaweyn buu leeyahay waajibaadka intaad galin goorma la aasaasay astaanta iyo xoogga dalka Soomaaliyeed goorma la aasaasay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed lagu dhawaaqo xoogga dalka Soomaaliyeed 60kii ayaa la aasaasay 12kii ciidanka dhulka 12kii April baa la aasaasay 1960 what ciidanka cirka ka horeeyay oo 15 February ah
asaa ugu horeeyay isaga ugu horeeyay ugu daaweyn ciidamada oo saddexda ciidan waxa ugu daaweyn ciidanka cirka oo 15 February 15 February 15 February la dhisay Febraayo lagu magacaabay iyo ciidanka dhulka oo lagu la dhisay maagteen 12 Abriil 12 Abriil marka maalin midaysan ma jirtaa saddexda oo la xuso liiraa maalinta waa maalintii xoogga dalka Soomaaliya saddexda oo isugu jira maalinta ciidamada xoogga 12 Abriil badama ciidanka cirka iyo baddu ay hoos imanayeen ciidanka dhulka oo xoogga dalka Soomaaliya isku yihiin ciidanka dhulka maalinta loo dabaaldegayaan wada dabaaldegi jirnay same time ciidanka cirka iyo ciidanka maalmo gaar ay lahaayeen oo gaar u dabaaldegaan oo ku kooban ciidanka kaliya cirka iyo badda waa 60kii iyo 60kii intuu dhaxaysay intuu dhaxaysay waa tahay marka waqtiga la asaas weeye ciidanka asalba waxa loo dhisaa inuu dalka difaaco oo ka difaaco cadow banaanka uga yimaada waa tahay ciidanku wuxuu kaloo waajibkiisa ugu weyn waa kaas marka wuxuu u baahan yahay waqtiga nabadda lagu jiro ciidanku inuu helo tababar nooc kasta ah oo hadhowta u suurta geliya inuu daafici karo dalka ciidanka dhulka tababaradii waa la siiyaa tababarada hubka waa la siinaya oo tababarka hubka qolo waliba nooc hadduu artillery yahay hadduu yahay taangista hadduu ciidan waliba hubkiisa waa lagu tababaraya dagaal gelintiisa ugu dagaalamaya baraya xabaduu ka ridaya yool baa loo qoraya dumi burburi oo la rabaa inuu la helo xabadda tababarka waxaa weeliyo oo kale dhulka aad ka filayso cadowga inaad kala taqaano oo lagu kala baro adoo dhulkaaga joogo ay topografiyada miis baa lagu sawirayaa dhulkii ilaa iyo rag baa soo barto qaabilsan topografiyada waa fantariga waa ciidamada fantariga iyo ciidamada cirkaba waayo cirka markay ay dawladdu duulayso dhulku suu hadda u egyahay markaad dhulka joogto uma eka oo height dheer baad aad maraysaa aad u fog marka ninka duuliyaha waxaad u qabtaa buurihi iyo dhulka inuu siman yahay dhirtoon buu arkaya iyo webiyaasha iyo wixii toogaad arkaysaa dadna arki maysid magaalooyinka sidaad ku aragtaa waa markaad meel sare marayso marka waxaa la rabaa topografiyadaas ciidanka cirka in la baro oo ay ku dulduulaan ilaa iyo xuduudda cadowga aad la leedahay ka filayso inay kaaga yimaado oo aad taqaano wixii ka sheegay cadowga gudihiisa ana inaad hesho musawirkeedu suu egyahay oo aad miis korkiis aad ugu sawirto oo aad ku shaqeynaa jirta marka cirka iyo dhulka iyo badaha xiriirka ciidanka mainly ciidanka lugtu waa ciidanka dhulka qabta haddii la rabo dhul in la qabsado ciidanka lugta qabanaya ciidan cir iyo ciidan bad ma qabtaan laakiin ciidanka marka ciidanka cirka iyo ciidanka baddu taakulayn bay siinayaan waxay u suurta gelayaan ciidanka dhulku inuu awood u yeesho inuu dhulkii qabto ciidanka cirku matal wuxuu la dagaalamayaa cadowga laynka hore cadowga hubka culus ee ay wataan waa burburinaya iyo dadkaba hubka anti aircraftka ah lidka dayuuradaha la yidhahdana waa burburinaya si dayuuradaadu ay cadowga laynkiisa hore ay uga dagaalami karto cabsi la-aan wuxuu la dagaalamayaa dayuuradaha cadowga ee soo duula inay ciidankaaga garaacaan iyo dalkaagana cirku uga hortegaya waa taa Cumar istiraatay waa galnay waa habka iyo dagaalka iyo farsamada taas guud ahaan marka waana 60kii waxaad moodaa xoog dalka Soomaaliya xoogiisa tababaradiisii 60kii wixii 60 ka dambeeyay ilaa 69kii aad u soo kacay ilaa hadda waxaa lagu qiyaasaa habeen dhaweyd mar akhrinayay taariikh waxaa la ilaa 350 ilaa 400 kun ay ciidamada guud ay gaareen maqlay xoogga dalka Soomaaliya waxaan doonaynaa marka dadkina dhageysanayo inaynu bal u macnayno nooc xoogga dalka Soomaaliyeed ee jiray 60kii ilaa 69kii yani difaaca ka sokow ma loo ogolaa inay siyaasad galaan inay meelaha xildhibaanada noqdaan inay barlamaan ka qayb galaan inay yani discotheque tagaan qoobka ciyaarada inay tagaan ma loo ogolaa maya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed policy banaanku ka ahaa wixii 60kii iyo 90kii ka horeeyay siyaasad looma ogolayn ma la geli jirin waayo siyaasaddu waxay jabin ciidanka dabar jabin way kala jabinaysaa ciidanka way burburinaysaa oo dadkiiba waxay noqonayaan saraakiishii different parties iyo different opinions bay kala maagtay ay kala ayidayaan marka cadow ciidanka dhexdiisa burburaya
marka sidaa daraaddeed mamnuuc bay ka ahay dowladdii barlamentaariga dowladdii lixdankii wixii ka horreeyey sagaalkii wixii ka horreeyey mamnuuc buu ka ahaa siyaaso inuu nin sarkaali galo ama nin askari galo difaaca dalka haddii lagu arkana horaa laga ruqsan jiray marka waa difaaca dalka waa difaaca dalka oo ciidamada la siyaasad shaqo kuma lahayn waagaas una tababaran yihiin midda labaad qabyaaladu xaaraan bay ka ahayd waa tahay oo wax qabiil la yaado xaaraan ka wax kasta oo keeni kara in ciidamadu ay burburaan waa mamnuuc bay ka ahayd discipliinka ciidanku discipliin buu haddii aad siyaasi noqoto discipliin kuma shaqaynayo waa kaa erigaa raadinaya yani ciidamada discipliin bay lahaayeen discipliin bay teeda kale xerooyin baa jiray oo waaweyna discipliinkaasi ma shaqaynaya haddaad siyaasi noqoto waayo taliyahaaga ka sokow meel kale xisbi iyo nin siyaasi oo culus baa ku xukumaya oo ku awtirsata hadduu maqlo sargaalkaaga waa xidhay oo discipliin baa loo soo ordaya meelu gargiya waa kaa soo daynaya markaa discipliinka halaabaya amar kale qaashada xumaanaysa ninka askarigaana waxaa rabaa inuu amarka uusan hadal ka soo celin waxaa lagu leeyahay adoo askari qori culus oo meel ka soo dhacayo boobo culusa soo aamusi soco waqti aad dagaal ku jirto ma diidi karto waana soo aamusisaa marka discipliinku waa first priority militariga that case baa loogu diiday wax siyaasa iyo wax qabiila iyo wax kaloo tafaaruq keenayo sagaalkii sano barlamentaariga ahay uu hase ahaatee waad ogtoo 64 dagaalkii galay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya la oran jiro dhami 5 kun buu ahaa qorigii xakiim bay ku dagaalamay qori al-xakiim iyo Masar waa xasuusta waata marka dagaalkaas isaga ciidankii Ethiopia ee xoogga badnaa ee marka naga tira badnaa waa tii aanu maartay jibinay way naqabsan kari waayeen taariikh way waxaynu ka hadlayno waa history weeyaan yani yaan loo qaadan dhan kale barkeed waa in umada taariikhda la baraa weeyaan marka ciidanka moral buu hayay waa kaas moral qorshana waa soo moral lahayn ma dagaalami karo moral iyo wadaniyad iyo xamaasad oo culus baa ku jirtay iyo xornimadii oo la dareemay oo loo arkay inay dib u noqoto haddii cadow ku qabsado marka xamaasadaas dadka dagaal gelisay oo looga oo wada midaysay oo wada midaysay saasay tahay oo ciidanku uu moralka lahaa kabacdi ciidanku aad buu u koray oo waa korayay inkastoo markii in kacaan ku qabsay wadanka uu aad u koray haddana lixdamaadkii 69kii waqtigaas isaga ah dhaliilaad badan baa jiray oo ciidamada dhexdooda ka jiray waa runta waa kulli wixii meesha uu dhexdooda maamul ahaante wixii perfect adiga goormaad qorata ciidamada 62 oo runa ma gaardisaad ku gashay mase academic ma academic ku gashay marka since then waxa weeyaan marka ciidamadii khaladaadka jiray waxay ahaayeen for example adduunka markii gumaysigu soo galay wuxuu noo keenay aqoontii wadankiisa uu ku hayay waka oo ciidamadiisa iyo waliba kii civilka ahaa institutionskii dawliga ahaa bay noo keeneen iyaga lahaayeen oo ingiriiska iyagu wadanka kusoo barteen ingiriiska talyaaniga iyo gumaysigii kale oo dhan meel kastoo adduunka ay tageen way geeyeen ciidamada structureka iyo dhismaha ciidamada iyagaanu ka qaadanay iyagii aan ka qaadanay siday u dhiseen koodu u dhisnaa si ka duwan baan u dhisnay anaga haddaan tooda raaci lahayn waxaa dhici lahayd inuu more effective ka ahaan lahaa siduu markii dambe ahaa matala haddii aan kuu sheego maraykanka iyo ruushka labada quudo ugu waaweyn bay ahaayeen ciidamadooda militariga ah waxay ka koobnaayeen 5 hoggaan bay ka koobnaayeen kiiba 5 hoggaan oo ruushkana saas u ahaa ruushkan maraykanku saas u ahaa 5 hoggaan waata markii dagaal dhaco maraykanku 7 hoggaan buu ka dhigaa waata laakiin markii nabadda la yahay 5 hoggaan weey annagana 48 hoggaan baan noqon waata 48 hoggaan waa markii dambaan gaarnay waa 96 marka waxa dhacaysa arintaas waxay keenaysaa in hal shaqo 3 meelood laga kala maamulo waana hal shaqo wixii waa khaladaadkaas way iska jireen midda kale oo very serious mistake ay jiray waxa weeyaan very markii waa 6 meeydiyan ku jirnaa ogow 6 ku jirnaa 6 ka bacay wali kacanka ma gaarin markii ciidanka cirka la dhisay matal niman injineer ah iyo niman buduuliyaal ah baa loo saaray inay soo sameeyaan ciidanka cirka sharciga lagu maamuli lahaa sharciga lagu maamulaa wuxuu ahaa waxa la soo qaatay buug yar oo ruushku ciidankiisa ku maamulo in anaga ruush baa waxaan ku soo baranay Soomaaliya
buuggaas waxaa ka leeyahay Nastevlen iyo Fastushni Fayani ciidamada cirka iska lahaa ani garan maayo wax loola jeedo waxa weeyaan fahmay Nastevlen waxa weeyaan buugga waxa weeyaan bookletka tilmaamaya sida ciidanka cirka loo maamulo Ruushka waxaa jira misunderstanding waxaa la yiri commander Balka waa battalion commander battalion commander hogaamiyaha battalion commanderku air force ka should be a pilot misinterpretation waxa lagu sameeyay taliyaha ciidanka cirka ee duuliye ahada ajaib waa taliya battalion waa markii ninkan battalionka squadron ka xukuma 12 dayuuradood ninka xukumayo taliyaha u hay waa nin markuu duulayaan raacaya oo daalka qayb galiyo ciidanka kala amrayo daal gelinaya waa tahay qaladaad badan logistics dhulka taala shaqo kuma leh ciidanka way civil ahaata waa tahay hab guuriski iyo sida wax u soo qaadanay iyo dadkii waxna baray iyo talyaaniga iyo ingiriiska iyo kabacdi annaga marka aynu xorowno calan samaysano astaan samaysano ciidan samaysano xoog samaysano haddana يعني runtii waxaan isku danay in yani tababaro raashka laga qaato waa ogtahay Itaaliya dad la geeyo akademiyadii moodana Ruushka aad adiga tagtay Ingiriiska xagga waqooyi galbeed Ingiriiska baa loo soo dir jiray marka waxaan doonaynaa kaliya dadka inaan barno 60kii ilaa 90kii xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu ahaa xoog yani ciidan saddex ka kooban ilaa haddaba badda cirka dhulka iyo kooban oo yani laakiin kacaankii waqtigiisii ka duunaa looma ogolan siyaasad looma ogolan maqaayadaha asagoo labisano uniform qabo dharka inuu ogolo inuu xisbi isku qoro in waxyaabaha discipline baa jira iyo hoggaansan oo waa ka tarjumay nidaamka dalka dawladda oo parliamentary for example waa jiray marka ay galabtii tahay askarta uniformkii banaha magaalada ku aadi jiray waa kay dharka la qurxiyay oo la soo feeray tiyaalo cadcad oo halka lagu xirayo waa ka kabihi buudka oo baalashay soo nuuriyo dharkii oo taagan oo aamita badhamada waxa la meejiyay baal oo brass afar u socdaan brass ba lagu dhalaaliyo dahab bay u yihiin koofida wax walba ninkii oo neat askariga taagan marka ninka magaalada iska maraya askariga markay gabdhuhu arkaan way mashxaradi jiray waaba la jeclaa ma sha Allah ma sha Allah xoog dalka Soomaaliyeed waa soo xasuusta aad baa loo jeclaa militariga bada booliisku uu public order iyo hadigoor uu caruurta iyo naagaha iyo kula jira faraha public order ka shaqeynayo wala nabca ma shaqada booliiska waxa weeye gudaha weeyaan inuu gudaha waayo dambiyada iyo ilaalinta iyo amniga iyo waxa sameeyay shaqadaas hadii laga kaxiyo booliiska shaqadu waa baaba'aysa dhibaatada iyo kirilka badanaya waa runta weeye marka hadda waxaad moodaa inay wada askariyeeyo nin waliba kaad hayga galeen dhinacaas waxaan galaynaa 1969 baa rabnaa haddana daawadoona muuqaal ma aragtay ku saabsan mataqaana xoogga dalka Soomaaliyeed ay nooga sheekeyn doontaa marka ciidankii sida ahaa ee saa u dhisnaa ee system lahaa ee yani discipline lahaa 1900 ciidamadii waxay la wareegeen dalka bay la wareegeen really that was a big mistake dalka bay la wareegeen maxaa dhacay 20kii sanadood yani dadka dalka la wareegay saraakiishii golihiisa saraakiisha iyo xoogga dalka Soomaaliyeed ma ogaayeen meeshay u socdaan iyo hawsha sugaysay maamulka dalka iyo qaranka siyaasadda iyo difaaca dalka ma isku wadi kareen maxaa ka dhashay noosoo bal muuqaal ku saabsan xoogga dalka Soomaaliyeed inta ka hadli doono farsamada fadlan noo soo saara please obviously waa bal ka wararta markii say kula wareegay markii militarigu xukun qabsaday waxaan aaminsanay inay ahayd mistake very serious mistake bay inay qabsadaan ma ahayn sababtoo maxay xilkii loo dhisay ciidamada maanta ugu dambeysay inay dalka daafacaan inay daafacaan maanta ugu dambeysay waxay ay gaadheen ciidamada marka ay noqdeen inay dawladda ay ka ilaaliyaan in la xagto shacabka iyo laga ilaaliyo dawladda loo taageero dawladda meesha lagu hayo ay noqotay waxa laga soo jeestay in dalka laga daafaco cadow banaanka uga yimaada in laga daafaco tababaradii waa istaagay soo kuwii 77 dagaalka gala ma 77 dagaal baa galnay dagaalkaas xoog badan oo aynu lahayn oo hub culus oo fara badan iyo trainingka dadka oo fiicnaa ayaa guusha keenay laakiin guushii aynu gaadhnay waxay ahaan lahayd mid ka dhaqso badan intii lagu gaaray waayo ma kula tahay markii la dhaafay xuduudii Soomaalida ee la galay
wadanka Ethiopia la galay in dhulkii la gala garan waay oo ninkii la rabay Harar inuu qabto uu garan waay jidku u marayo oo kii la rabay inuu meelba qabto uu garan waay jidku u marayo waxayna waxa in mar hore la soo baray يعني قلادات كاسا جيري يعني hadii jidka la yaqaano mar hore waxay dhamaan lahaayeen oo la qaban lahaa wadan marka ciidamada qabta dalka 69kii aqoon uma lahayn mana ogayn meesha ay u socdaan iyo waxa ka hor imaan doono meesha wax ku dhamaan doona Soomaaliya meesha u socoto dadka aqoon uma lahayn geofisikada dhulka suu egyahay hatta ra'yi kama haysan ciidanka cirka oo anigu aan ka tirsanaa matal niman dhalinyaro xidiglayaal oo ka yimi Ruush oo MiG-21 ku socda ku duulaya oo la soo baray take off and landing only ka oo deg la soo baray oo xabad ka ridin badalkii loo diray ajaab way qaladaad waxa dhacay nin duuli oo taliyihiisi oo dawlad ka horeysa inuu moodo dawlad cad oo togti oo duqeeya oo togti qaladaad waa taqaan jalalax waa saas ku soo dhacay waa tahay kun askar saraakiishii xoogga dalka Soomaaliyeed siyaasadii bay dalka faraha la galeen waa qabsadeen waa la wareegeen ciidankii wuxuu noqday siyaasi uu noqday ciidankii governors buu noqday minister ruu noqday power baa la gaaray nin wale wuxuu u gaaray inuu u xusiyo suu power ku heli lahaa recommendation u galo xagga ka wareeg hebel u tagaya ku yaqaan governor laga dhigay district commissioner laga dhigo nin wale wuxuu galay meel inuu raasyo waxa laga soo jeestay marka difaac waa ka askarinimadii iyo ciidankii la rabay in dagaal loo tababaro tababarkii uu istaagay مثل maxaa saraakiisha baa suuqa gashay anigu xogogaal buuxa waxaan waliba ciidanka cirka ciidanka cirka wuxuu gaaray inaan la samayn tababar xabada la ridayo ciidanka u soo riday tababar waxaa dhici kartay inaan dayuurad ka dirno xamar oo aan berbere ku dawo ka halaabo oo ka lumo oo meel cid ku dhaco ama dawladdu meel uga boodo يعني واحد شيء وتبرر الآن باشرتي حق السياسة وحلو تشستي حق السياسة يمسك إيو إن ما تيقفك وهرو كعنك مركو ده شيء وحو سميه ووحي أنت كعنك كهضية ها ده واقرني كعنك كهضية الله يكون إسقال بقول إسقال طلباتك وحال أبور مركو ده شيء وحو إسكو ده أسكرتي إني يرادان قولي يصير كعنك وحنا أبورينا يعني وزيره حك هاي يلبا واقع الأورنجري ده حسوسته كعنك وحو يري أوكي dadka yani aqoonta leh oo shibilka ah aynu wax u dhiibna annagana dushiisa ka waardiyno arinta maxaa bedelay waa soo weydiileen ragii wasiirada waxa bedelay sida ka muuqanaysay waxa bedelay in military uu qabsaday inuu muujiyo inuu civilki ku wareejiyo xukunka markii hore sidaas amal in markii xisbigii kacanka la sameeyay ayaa dad shibila wasiir laga dhigo oo la soo galiyay at the same time dad military waa jireen oo ku jira meesha laakiin anyway ciidamadu waxay daciifeen waxaan oran jiray markii waqtigii kacanka ciidanka cirka ceremonial buu ahaa first October inuu maro oo meesha maro ayaa loogu talagalay laakiin haddii dagaal dhici lahaa ma daafici kareen dalka waata marka waxaad leedahay kacaankii wuxuu ahaa yani sidii ninkii yani hal dhagax damcay inuu laba shimbirood ku dilo maxaa dhacay marka askarta xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa loo tababaray inuu dalka Soomaaliyeed badda iyo cirkii dhulka uu ka difaaca wixii cadawa gudaha ummadana uu kaalmeeyaa loo tababaray haddii marka xoogga ciidankiisaas la ogaa haddii uu halkan inuu yimaado yiraahdo dalkii baan siyaasadiisa maamulaya dalkii inaad maamusho oo horumarkii dalka ka shaqayso iyo inaad maamusho xooggii weynaa isku weynaa labadii mid aad u gooda dawladdu waxaa la rabay inay maamulka laakiin militariga inaan la gelin siyaasadda ku ahay maxaa dhacay marnaba aan siyaasadda la gelin waata maxaa dhacay oo ninka militariga uu ahdo militari matal waxyaabaha oo dhaliilaadka aan ka sheegayo oo aan isleeyahay maaragtay aan u sheegayo inaan hadda la samayn dhaliilaadka waa ku soo socotaa 90 ilaa hadda waa ku soo wadaa waxaan doonayaa ninka militariga ah waa professional militarigu صح qof walba iskama noqon karo aniga dhakhtar inta halka taga ma oran karo dhakhtar baan ahay oo midiinta qaatad ka aan ahay dhakhtar weligeena arag hadda marka maadaama uu militarigu profession yahay ninkuna hawshiisa ay tahay inuu wadanka daafaco waa inuu wadanka u shaqeeya daafaca maaha nin militariya
in la yihahdo administration noqo folya baago intuu qoro uu qabta maaha ama wasiir noqdo waxa weeye hawshan u bartay waa inuu hawshi ku ekaada laakiin ninka wasaaradda gaashaandhigga maamulka logisticada la yihahdo iyo maamulka lacagta iyo logisticada civilian way ahaadaan nin military oo madax u ah oo kaliya senior officer la sameyn karaa la sameeyo la ogoliya la sameeyo laakiin staffka oo dhan waa civilian maxaa dhacay marka dagaal dadaa waxay u saarayaan askartii xoogga dalka Soomaaliyeed golihiisa rakacaanka yani ciidankii siyaasadda dalka la wareegay sababaha rida waxaa kamid ah qodobadan soo socda laba dhibcood asaaskii xisbiga hantooda gacanka Soomaaliyeed oo yani budget iyo dhaqaale weyn dalka uusan u lahayn dagaalkii Itoobiya la galo dariskeena 77 ah labo inqilaabkii dhicisoobay ee Cirri Cabdullaahi Yuusuf 3 shilkii Maxamed Siyaad Barre 4 afartaas qodob iyo jabhadaha ku dar yani halka ka dhashay shanta qodob iyo kacaankii yani ku kacay siyaasadii dalkana uu celi waayay ka farbaxsatay waa burburka meesha ka bilaabanay meesha weeyaan marka burburka waa sababihii wey laakiin wadanku mar walba waa burburi lahaa hataa haddaan waxaas la samayn lahayn gacanka waa burbur lahayn mar walba waa burbur ilaa howlihiisi maaha inaan khaladaadka tira badan haddii wixii la qabiileeyo oo la siyaasadeeyo wax ma dhismaanayaan dowladihii jiray oo dhan maanta meeshaan waxaana dhigay waxa weeyaan waa systemkii la bedelay oo siyaasadii la bedelay xumeeyay qabiil baa la geliyay waxuna haday isku dhax qasmaan ma wanaagsan waxa weeyaan waa in wuxuu ay ahaadaan pure nadiif ay kala soocan yihiin qabiilku waa inuu ka baxaa maamulka dawliga ah oo soo dhax gelin waa inuu wada burburi lahaa waxaa la sameeyey for example waxaa la sameeyey nin generaala oo laga yaabo 1 year inuu general ku qaatay from the bush to general 1 year ninka haddii maanta inta loo dhibo guuto la yahay dagaal geli ma dagaal gelinayo samaba yaqaani this is the problem waxaa leedahay marka 60kii 69kii iyo 69kii 90kii waxaaba wanaagsan dalkii oo xorriyad soo helay oo dadka wada midaysan yahay laga wada oo isku wada xiran oo ciidankii dhisnaa discipline kala ahaa siyaasadda banaanka ahaa birta ahaa aan la jabin karin oo marka militarigii la yiqiinay ahaa markuu soo galay 69kii wixii ka dambeeyay baa qabiil la dhaxgeliyay markaasaa maamul xumo la dhaxgeliyay markaasaa siyaasad la dhaxgeliyay markaasaa wixii oo dhamay ay halaabeen markaasaa ciidanka kala faarmay waxaan gaadhnay ciidanka markuu wadanku burburayay ee dagaalku dawladda la dagaalamayay waxaa la rabay ciidanku hadduu dhisnaan lahaa oo jiri lahaa institutionka dawladda inuu qabto oo badbaadiyo wixii isbaxsanay qoodii timaada markaas ku soo guuleysata xukunka markaa timaada ayuu ku wareejin lahaa waxa wixii oo dhan militariga burburiyo ka qayb qaatay wixii militariga marka hore la kala burburiyo siyaasad galay qabiil iyo bakti marka waxaa leedahay burburkii iyo dhibaatooyinkii wixii ka dhashay 69kii ilaa hadda daawada dhibaatooyinkan hadda mar ku jirno waxaa loo saarinaya loo sababeynaya 69kii ilaa 90kii wixii dhacay sababtana waa runta waxaa dhacday nin walba in la yiraahdo meesha meel dhacdac lama lagu dhibaa waa wax ajaa'ib la weyn waxa manshiibiya taasara u dooran jawaa xasuusta waxaa lagu leeyahay mal 100,000 shilin aad siinaysaa markaas kulli ii soo noqon saacad bacda ku siin meel walba lacagti saraakiish baa dalaalay noqotay marka ma ahan yani waa ayagana dambi male sababtuna waxay u arkayeen bilowgii markii ay dalka la wareegayeen siyaasadiisu inay saxan yihiin yani kacaankii ruushka baa la rumaystay 1900 Oktoobar 17 waa ka duwanaa ka shacabkii baa inqilaab ka sameeyay shacabkii baa inqilaab sameeyay marka shacabkii kacay inqilaab sameeyay boqortooy saarkii riday ciidamadu way raaceen shacabkii raaceen laakiin waxa wax riday waa shacabkii laakiin anaga dad kooxa oo baawar doona wixii hadaan maanta anigu aan baawar doonayo aan inqilaab sameeyo oo aan qabso wax alla wixii iigu yimaada baawrka in baawar aan ku meesha xoog baan ku qabsay waan dila ma yeelayo ma ogola in soo dhawaado waa tahay waqti baan ahay marka kacaanka runtii marka uu dhashay waxna waa qabtay laakiin waxyaalo badan way ka dhasheen يعني ما أنت وحياله بدن بان دول صارن لو باهي إلا حلي أمة الصومالية قاشال نصر عمر بايلا فدي قاشال كور مركا هذا سيدا بدو أركتها مركا
horta maanta ciidan ma jiro see loo soo celin karaa is leedahay waa tahay san yeelnaahan usoo dib u dhisnaa xooggii dalka soomaaliyeed gabagabadii barnaamijka haddii aan dowlad soomaaliyeed oo midaysan la helin Waa. xoog dad soomaaliyeed la heli kar maayo waa ka wadanku anigu waa maanta waxaan qabo maabsar waxaan qabaa wadanku waa in la mideeyaa unitydii dalka waa in la soo celiyaa waa ka marka unitygii la soo celiyo oo dowlad soomaaliya oo unity ah sidii tii hore jiri jirtay la sameeyo oo 60kii kale lixdankii la sameeyo What? markaas ayaynu inagu tashan karnaa waa tahay oo odhan karnaa autonomy regions ala sameeyo iyaga maaragtay decentralize halaga dhiga xukunka xoogga dalka see loo soo celin karaa xoogii dalku markaas waxaa iman kara Xisaabtan. xoog dal oo soomaaliyeed laakiin maanta haddaad tagto say puntland aad tagto xoog qabiil baa ka dhisan haddaad xamar tagto xoog qabiil baa ka dhisan Sax. haddaad tagto kismaayo xoog qabiil baa ka dhisan haddaad bay tagto xoog qabiil baa ka dhisan marka xoogaga qabiilka ah see u maaraynaysaa adiga ma in la mideeyo wixii hore noo burburiye waaye aragtidaada adiga gaashaalna sare wakti hore waaye aragna arrimaha ku xeel dheer sideeba dowladda maxaad ku waaninaysaa Aniga waxaan ku Soomaaliya aniga xooggii dalka Soomaaliyeed kuma dhismayo. ku waanin lahayd kacaan inay Haddii sameeyaan xataa- kacaan dambe inay dhaliyaan Dhegeyse, xataa haddii maanta ciidamada kala duwan inta lasku keeno lasku dhex khaldo ya kuma dhismayo xoog dalka kuma dhismayo waayo dalkii waxaa loo bixiyey 4.5 ninka askariga kula jooga 4 buu ka tirsan yahay point buu ku meel buu Wala- jiraa. Soo wala ma garan? habeynaya. politically motivated waa ninkani waa tahay ma soconaysa waa tahay barnaamijkii way arag ilaa unity soomaaliyeed la helo ma soconayso wadanku waxaa loogu talagalay inuusan wadanku uusan dib waa tahay xal waxaad u aragtaa midnimo soo maha midnimo keliya way Aad iyo aad inuu buu- dale ummad soomaaliyeed oo mid ah oo aan kala socon aad iyo aad- markaasaa wax dhismi aad iyo karaa aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahay cumar gaashaalna sare cumar suleymaan oo igala qayb galay barnaamijka way arag kan kagala hadlayna ku ifinayna maanta taariikhda heerar kala duwanay xoogga dalka Soomaaliya uu soo maray dadkiina soo weydiistay runtii waxaan jireynayaa xogaa inaad ku qanacdeen guud ahaan daneynaya asnaanta iyo astaanta xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taariikhdiisii iyo sidoo kale ahaa iyo loo baahan yahay in la ifiyo aad iyo aad baa umahadsantahay gaashaalna sare tan iyo barnaamijka farsamada waxaa iska leh caawa halka Yuusuf Garabey Faiza Caamir iyo Xanaan tan intaan kulmi doona barnaamijkan oo kale waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo waa mahadsantahay